kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay meel kasta waa joogtaan baa soo dhawaada guud ahaanba gobolka lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Raaya ee koonfurta dhulka Tigreega in dhawaalana muranka xoogani uu ka taagnaa ayaa si buuxda waxa jabhadda TPLF ay u shaacisay in ay gacanta ku dhigeen lana wareegeen dhammaanba magaalooyinka kala duwan ee gobolkaasi ama deegaanka Raaya sida ay sheegeen kooxda TPLF dhammaanba magaalooyinkii muhiimka ahaa ee gobolkaasi ayaa gacanta waxa ku dhigay ciidamada jabhadda TDF loo yaqaano ee Tigreega kuwaasi oo ah kuwa maalmihii la soo dhaafay baa ku guda jiray dhaqdhaqaaqa iyo howlgallada dagaal ee ka dhanka ah ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo ciidanka maamulka Axmaarada kuwaasi oo dagaal kharaadh kala soo horjeeday kooxda TPLF waxaase haatan muuqata amaba soo ifbaxday in looga itaal roonaaday inta badan goobihii ay ku hardamayeen ciidamada maamulka Axmaarada oo ay kaabayaan militariga dalkaasi Itoobiya iyo ciidanka kooxda TPLF ee loogu magac daray TDF sida ay sheegeen amaba ay ku waramayaan warbaahinta kala duwan ee taageerta kooxda TPLF iyo waliba warbaahinta caadiga ah ee maxalliga ah ee inta badan sida dhexdhexaadka ah iyagu wararka u soo tabinaya ayaa waxa ay isku waafaqeen amaba isku raacsan yihiin in guud ahaanba deegaanka lagu magacaabo Raaya uu ku dhacay gacanta ciidamada TDF ee Tigreega kuwaasi oo ugu dambeyn magaalooyinkii muhiimka ahaa ee deegaamadaasi iyagu la wareegay galinkii dambe ee maanta meelaha ay qabsadeen ciidamada kooxda TDF amaba jabhadda TPLF ciidamadeeda TDF lagu magacaabo ayaa waxa ay kala yihiin magaalooyinkii ugu muhiimsanaa deegaankaasi Raaya lagu magacaabo oo ay ugu horeyso magaalo madaxda ama caasimadii deegaankaasi ee Alamata halkaasi oo subaxnimadii hore ee saaka ay ku waabariisteen ciidamada kooxda TPLF ee lagu magacaabo TDF sida ay ku soo waramayaan amaba sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay guud ahaanba magaalooyinka ay qabsadeen ee ay la wareegeen ee muhiimka ah ayaa waxa kamid ah magaalada Korem oo magaalintii shalay ahayd gashay gacanta kooxda TDF ama ciidamada TDF magaalada Alamata caasimadda gobolkaasi iyo waliba magaalooyinka kale ee Wafre Adeta iyo Maytasare magaalada lagu magacaabo magaalada Maytasare ayaana ugu dambeysay oo ahayd meelihii ay gacanta ku dhigeen ciidanka jabhadda TPLF ee lagu magacaabo TDF degmooyinkani oo dhammaantood ba muhiim u ahaa ciidamada maamulka Axmaarada iyo kuwa maamulka dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay haatan ku jiraan gacanta kooxda TPLF waxaana muuqata in xaaladdu ay haatan dhinaca kale isu rogtay oo dhammaanba magaalooyinkii gobolkaasi Raaya ay gacanta kooxda TPLF galeen haatan wixii ka dambeeyana loo dhaqaaqayo dhinaca galbeedka ee gobolka Walqeyta lagu magacaabo halkaasi oo ay caasimadiisu tahay sida aan filayo magaalada Humayra dhacdana xuduudda dalalka Suudaan iyo Eritrea kooxda TPLF magaalooyinka waaweyn ee ay qabsadeen ayaa si weyn waxa ugu soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan magaalooyinkaasi kuwaasi oo muujinaya dareenkooda iyo waliba aragtidooda la xidhiidha soo gelitaanka ciidamada kooxda TPLF ay gudaha u soo galeen magaalooyinka kala duwan ee deegaanka lagu magacaabo Raaya halkaasi oo ciidamada maamulka Axmaarada iyo waliba ciidanka dawladda federaalka ah tani waa magaalada lagu magacaabo Mayatasabiri ama Mayatsabri oo kamid ah magaalooyinkii ugu dambeeyay ee ay gacanta ku dhigaan amaba ay ciidamada kooxda TPLF la wareegeen galinkii dambe ee maalinnimadii maanta ahayd taasi oo muujinaysa sida shacabka ku dhaqan magaalooyinkaasi ay taageerada lixaad kale ugu hayaan ciidamada kooxda TPLF ee iyagu haatan la magac baxay TDF ee la wareegay inta badan ama gebi ahaanba deegaanka Raaya oo ah
halka uu ka soo jeedo afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda. marka laga yimaado magaaladan lagu magacaabo Matsibri oo ah mid ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee deegaanka Raaya ama gobolka Raaya oo galinkii dambe ee maanta ay gacanta ku dhigeen ciidamada kooxda TPLF. waxa kale oo aan jeclahay bal hadda in aan idin la wadaago muuqaal kooban oo isna muujinaya markii subaxnimadii hore ee saaka ay ku qulquleen maleeshiyada kooxda TDF lagu magacaabo magaalada Alamata ee caasimadda gobolka Raaya ee koonfurta deegaanka Tigreega, kaasi oo ka mid ah dhulka ay sida weyn isugu hayeen maamulka Axmaarada iyo waliba maamulka qoomiyadda Tigreega, kuwaasi oo indhawaalaba khilaaf iyaga u gaarahay oo ka dhex aloosnaa kooxda TPLF. waxa wacad ay ku martay inaanay joojin doonin guud ahaanba dagaalka ay ku doonayso in ay dib ugu soo celiso dhammaanba xuduudaha wixii ka horreeyay dagaalkii 4 bishii November dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ku qaaday guud ahaanba deegaanka Tigreega. tani waa magaalada lagu magacaabo Alamata, caasimadda deegaanka Raaya oo si buuxda subaxnimadii saaka ay ugu kalaheen ciidanka kooxda TPLF ee lagu magacaabo TDF. ciidamada ayaa si weyn u soo dhaweynaya shacabka ku dhaqan magaaladaasi oo muujinaya dareenkooda iyo weliba sida ay ula dhacsan yihiin soo noqoshada kooxda TPLF in magaalada sideed bilood ka hor laga caydiyey magaaladani Alamata lagu magacaabo. waxaa xusid mudan magaalada Alamata in ay ahayd magaaladii ugu horreysay ee dhiigga badani oo ku daatay iyada iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Mayakadra oo iyada uu xasuuqa ba'ani ka dhacay. xasuuqaasi oo dhinacyada ku loolamaya dalka Itoobiya mid waliba midka kale uu ku eedeeyay. TPLF waxa ay sheegtay xasuuqii ka dhacay magaaladaasi lagu magacaabo Mayakadra iyo waliba magaaladani Alamata ee ay subaxnimadii saaka kuwa bariisteen ciidamada TDF ee jabhadda TPLF inay ka dambeeyeen ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo waliba ciidanka maamulka Axmaarada, balse ciidanka dawladda federaalka ah ayaa iyagu waxa dhinacooda ay eedda dusha ka saareen kooxda TPLF. waxaana la aaminsan yahay dad kor u dhaafaya 1,000 qof in ay ku dhinteen magaalooyinka Mayakadra iyo waliba Alamata bilowga dagaalkii ka dhex qarxay kooxda TPLF iyo ciidamada dawladda federaalka ah ee dalkaasi Itoobiya. guud ahaanba haddii aan isku soo duuduubno gobolka Raaya ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka jabhadda TPLF ee lagu magacaabo TDF. waxaana saacadan hadda aan hadlayo shir u fadhiya oo iyagu shir degdega isugu yimid guddiga difaaca qaranka dalkaasi Itoobiya oo lagu wado in ay xaaladda ka soo cusboonaatay deegaamada ay ku muransan yihiin kooxda TPLF iyo waliba maamulka Axmaarada ay ka hadlaan. waxa kale oo xusid mudan in guud ahaanba axsaabta mucaaradka ah ee maamulka Axmaarada iyo waliba maamulka Axmaaradu ay ku eedeeyeen dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya in ay iyadu sahlayso amaba ay fududaysay in ay kooxda TPLF la wareegto gobol weynaha Raaya oo ah dhul qani ku ah kheyraadka dhinaca beeraha oo ay gabi ahaantiba la wareegtay kooxda TPLF saacadihii ama 12 saacadood ee la soo dhaafay, kaasi oo gabi ahaanba haatan ku jira gacanta jabhadda TPLF. haddii allaha awoodda lihi ogolaado wararka xiga ayaa waxaanu idinku soo gudbin doonaa bal hadda isbedelada socda iyo waliba xaaladdu sida ay tahay iyo sida haatan Axmaarada qayladhaanteedii ay halbacaad lagu lisay u noqotay mudaharaadyo ka dhacay meelo kala duwan oo deegaanka Axmaarada ah. ciidanka liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalida ma waxay ku wajahan yihiin ka qayb qaadashada dagaalka lagu difaacayo deegaanka Axmaarada? qodobadaasi iyo waliba warar kale ayaanu idin soo gudbin doonaa haddii uusan ilaahay ma aha dhihin qadar 30 daqiiqo ah markii aynu ka joogno warbixintani. waa Galad Xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlayay oo idin leh daqiiqada kadib iyo falanqayn iyo waliba wararka ugu dambeeya ee aagaasi waqooyi ee dalka Itoobiya.